أخيارة الشرف له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فريت أن تضبن وحيقار كتهاي مدحضة دلك أغسط الرئيسة هي السياسيين تعانك دلك نكا أي قار أتهاي فرينت وحي أسعوتا سيديد دنين دلك أغسط الرئيسة لقصوا بالله مدحوينها حكومة دينا فدرال كآد دولة دينا الصوماليات برايم مينستر كيسا دوقا مقالة مقدشو بنادر إيوه شانت الدولة قواليد maanta laga sugaaya hawlo doorashadeed intaas oo muddadii aan soo dhaafnay khilaafaad aad u weyn ay hareeyeen oo ku kala bixi kari waayeen oo mar alla markii ay heshiyaan haddana muddo yar la maqlaayo way iskhilaafeen ilaa sidii ninkii doqonka inta la soo helay yidhi maxaa la igaga farxi bariba waan lumayaaye sidaas oo kale ayaan noqonay يا قردران يا قردرين معنا يكون فردان ماله وحان كهدلينا مصلحة جود قدبك كوباد أن ربعنا سديدنا مسؤولين تمانتا أشيغو دل كان عاد مدحدا كتهين معها واحد إذن كليدهين معها دكان آليدهين معها بديسا يوبياشيسا يبيهيسا يحوليهيسا يهوديسا iyo barigiisa iyo dadkiisa amaano ilaahay idinku imtixaanay oo gacanta ku haysaan weeye amaanada ha ku takrifalin oo ilaaliya idinku ku mahadsan oo barita markaad ka tagtaan ha qaadanina shahaado been ah oo la yiraahdo waa nimankii tuugta ahaa ama hebel ninka la yiraahdo markuu madaxda ahaa ayuu nin xun buu ahaayo tuug buu noqdayo waxbuu boobayo si xun buu u dhaqmay yaan leeyahay dihin annagana ceeb inagu tahay idinkana ceeb idinku tahay qodobka labaad oo run ahaan dadku si xoog badan idinka sugayaan sano iyo 4 bilood baad doorasho leedinka sugaayay ka horna khilaafaad aan macna lahayn baad mashquul ku haydeen sano iyo 4 biloodna meel loo kala dhaqaaqa ayaa la waayay intaas oo hadal ah ayaa idin dhex maray bulshada ayaa idin soo faragelisay caalamka ayaa idin soo farageliyay mar alla markii la heshiyo haddana mar labaad ayay meeshii ka bilaabanaysay doorashadii sidaas marka dib ugu dhacday waxa marka dadku ay idin ka rabaan oo caalamku idin ka rabaa caalamka saaxiibadeena in kaalmeeya iyo caalam dan inaga leh intuba waxay rabaan doorashadaas sida ugu dhaqso badan in loo dhameeyo oo la iska daba wareegin sidii dad waalan oo kale ee lagu soo afjaro muddo aad u yar qasabayna idinku tahay haddaan la samaynin macnaheedu waxa weeye dawladeenu ma sii jirayso qodobka saddexaad oo raba inaan idin soo gudbiyo wuxuu ku saabsan yahay nabadda dalkan intii aad madaxda ahaydeen waxaa lagu diriray meelo fara badan Jubbaland waa lagu diriray oo gadahaba u sii xoog badnaato Puntland waa lagu diray dagaalkii u dambeysay oo Boosaaso hadda ka dhacay Galmudug waa lagu dagaalamay oo weeraan mar iyo laba oo kii guriceel ugu dambeeyay Muqdisho ayaa lagu dagaalamay inta joogtaan dagaal dambe yuusan dalka ka dhicin oo idinku sabab ka tihiin waxa la rabaa wax walba aqli iyo wanaag iyo wada hadal in lagu dhameeyo ayaa la rabaa qodobka afraad waxa weeye dadka bini aadamku wuu iskhilaafaa خلافات كدحدينا ملهي ومستحيل ومحي أدعي ملهي لكن مالي والبواحد حلين كرتان إن عيبتين دادكونا كوشي كيستو عدوغينونا كوشي كيستو دال كان عدو قرابين ودويا ميلو كسو قلاء وهلو نصيب درة آدوين بإنو قطاي وحال ربا هورو الصعودة دولة دي واحترام إيا أذيك ما يكون لسانتهي الدولة دي دولة دي وحي يكون لسانتهي in la is-ixtiraamo oo la kala dambeeyo oo kolba ruuxii kuraasta fadhiya la ixtiraamo shacabka Soomaaliduna inuu arinta ku xun yahay ma u maleynaayo iyo iyadana waxa laga rabaa adeeg sax ayaa laga rabaa iyo kala dambeyn dawladana waxa laga rabaa inay adeegto bulshadana waxa laga rabaa inay u kaalmayso oo ixtiraamta madaxdooda bulsho iyo madax islaanadii dawlo ma noqonayaan qodobka shanaad ee ka hadlayo
wuxuu ku saabsan yahay run ahaan oo maanta ugu culays badan abaarahan maanta jira ood kaga mashquusheen kuraasi iyo isku haysad iyo khilaafaad aan jirin oo soo afjarmaynin oo aad joogtayseen run ahaan ayaa maanta intaas oo milyuun oo Soomaaliya biyo la'aan iyo guri la'aan iyo cunto la'aan iyo khaymad ay maartay ka harsadaan teendho ay ka harsadaan kuleylka aysan jirin qabowga midna waxa mas'uulka ka oo ilaahayna warsan doonaana waa idinka arrintaana waxaa la rabaa si sharaf leh inta isku xishootaan oo naga xishootaan oo ilaahay ka xishootaan inaad dadka u gurmataan oo adduunka ugu qaylisaan oo Soomaalidana aad ugu qaylisaan laakiin dad iyagu is haysta qayladooda ninna ma dhageysanayo qodobkaasna intaasaan dhihi lahaa طبعا waxa qodobka lixaad ah waxa way corona ayaa jira khilaafaadkiina sanada iyo barka uu jirayba corona ba idinka nooga daraa runta marka la yiraahdo maxaa jira coronaha intuu dilay in ka badan baad waxaad ku disheen walbahaar iyo mashaakil iyo daawo la'aan intii marka aad adduunyada aadi lahaydeen oo saaxiibadeen ayaa waxa way dadkeeni dhan uu cudurkaasi dhameeyay isagoo hadda cusub haddana jira waxaa marka la idinka rabaa si xoog badan oo ilbaxnimo ah oo amaano ah oo sharaf leh inaad ummadiina u inqaadisaan oo ummadiina aydan ku fiirsanin cudurkan khatarta ah run ahaan markaan u imaado qodobka 7aad markaan u imaado waxa weeye dawladnimadu waa kala dambayn waay markii idinka aad iskhilaaftaan dhexdiina sideediina oday ee dalka madaxda ka marka iskhilaaftaan oo is ixtiraami weydaan dadka kale idinma ixtiraamayo saadaradeed waxa la rabaa in waardiya laga hayo wixii noo soo dhismay ee bulshadu soo dhisantay oo maanta 5 madaxweyne isaga dambeeyeen gobol walbana intaas oo madaxweyne isaga dambeysay inay naan burburin oo markay iskhilaaftaanba aydaan dhihin ciidankuna ha kala tago wasaaraduna ha burbureen ninna madaxiima aha ninkii yiraahda nin madaxiima aha isna madax ma noqonayo saadaradeed waxa la rabaa kala dambeyntu waa muhiim waaye hatta hadii la iskhilaafo waxa la rabaa in dadku kala dambeeyaan oo ilaa dawladda doorasho inta laga sameeyo si sax ah la isugu wareejiyo sidii Xasan Sheekh Maxamuud u wareejiyay oo Shariif u wareejiyay oo Abdullah Yusuf tabcan waxa weeye muuna dhameeyay laakiin si sharaf uga tagay Abdi Qaasim si sharaf uga tagay uu dhameystay uu u wareejiyay waxa la rabaa farmaajo inuu si sharaf leh u wareejiyo hadii la doortana waa la dooran hadii kale kii la doorto ku wareejinaya saadaradeed intii inoo soo dhisantay yaan la burburinin ugu dambaysta waxaan rabaa inaan risaale ugu daro dadka siyaasiyiinta ah ee mucaaradka ah mucaaradnimadu waa sharaf in la yiraahdo madaxweynaha khaldan iyo wasiir baa khaldan iyo mudiir sharika khaldan waa sharaf waay laakiin waxaan sharaf ahayn inaan anigoo raba inaan madax noqdo dal uun hadda nabada oo caadigiisa inaan anu xabad soo qaato sharaf maaha in magacayga dad lagu dilana sharaf maaha magacayga in dad lagu dilo ana anigu ii adeegi doonan ugu dambaysa sharaf maaha ceebtaasina ma maydhmayso saadaradeed akhyaarta sharafta leh ee mucaaradka ah oo musharaxiinta ah oo raba inay qaarkoodna villa Soomaaliya madax inoo ahaayeen madax sharaf leh ahaayeen in kamida iyagiye in ka sii badan waxayba rabaanba inay hadda tartamaan bay rabaan saadaradeed tartankana xaq baad u leedihiin mudaharaadka xaq baad u leedihiin inaa murataan xaq baad u leedihiin laakiin waxa weeye sidaad u jeclaydeen dalkan inuu aamin noqdo markaad madaxda ahaydeen baa haddana loo rabaa inaad sidaas aad u tasarruftaan waxa la rabaa dadka dalkaasi doorashadaasi inaad qayb ka noqotaan oo dhammaantiin aad tartantaan oo dhammaantiin dalka nabadiisa iyo wanaagiisa ka shaqeysaan baa la idinka rabaa saadaradeed dawladii waa doorasho waa kala dambayn waa isu adeeg iyo walaalnimo reerna dawlad ma noqonin jufana dawlad way noqon kari weyday waa la isku day laakiin way noqon kari weyday waa kala adkaan weynay walaaloona wax ku dhaanta waa la waayay saadaradeed odayaasha iyo ururada bulshada waxaan leeyahay xukunka idinka soo dhisay ha ka seexanina ayaan idin leeyahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa rag iyo dumar
intii dalka dhismihiisa ka soo qayb gashay waxbarashadiisa ka soo qayb gashay waxaa leeyahay maanta boqolaal kun oo caruurteennii ah oo dumarkeennii ah oo odayaasheennii ah oo raggeennii ay baahi dilaysaa ama abaar ha hayso ama jiro ama kuwan magaalooyinka waaweyn ku dhexle buulasha yaryarka ah oo iyaguna aan tacliinna aadi karin nolol la aadi karin ahaato intaa marka la isku daro waajib ina wada saaran weeye guryaha dheer ee dhisanaynana hoostooda waxaa ku nool caruur maandooriye la siiyaa ku nool oon iskuul la aadin gaajaysanna haddii marka dhammaan inaguna aan saa isu haysano xoolana aan kala boobno aynan kuwaa danaynin kuwa aakhirka ina dilina waa kuwaas waxaan ka codsanayaa dhammaan dadka muranka inay joojiyaan caalamkana aynan noo jabinin waxaa ka dhalanaya waxaas haddii uu sii socdo shalay tole dawla Soomaaliya oo mutaxida ummadaha midooday in la yiraahdo dawlad ku meel gaadha tihiin haddana la ictiraafo oo maanta ugu yaraan yani aan leenahay dawlad iyo baanan iyo sharikaad iyo yaa soo gaadnay waxaa la rabaa waxa maanta aan soo gaadnay inaynaan dib uga noqonin waxaan warkayga ku soo khatimayaa dhammaan dadkii dalka soo dhisay iyo inta maanta joogtaba dawladda ha loo heelanaado ha la kaalmeeyo doorashadana aan ka wada qayb galno xabadna yaynaan isku ridin madax waad noo tihiin laakiin nama lihidin berri baad ka tagaysaan idinkoo xafiiska oo nin waliba xafiiska oo nadiifa ha ka tago dhiig dambana yaan la daadinin bulshaduna waa idin fiirsanaysaayo laakiin maalintii aad ka socon weydaan iyada ayaa istoosinaysa waxaa weeye ruuxii ammaanada inta loo dhiibay kitaab quraana maray inuu ummadan mukhlis u yahay hadduu ka soo bixi waayo annaga laba xoog baan haysanaa ururada bulshada haddaan nahay xoog waa xoogga aan idiin sheegayo haddaan soo jeesano ururada bulshada soo jeesadaan iyo ummaddu ruux ka xoog badnaan karaa ma jiro dhinaca kalena inta masaakiinta oo dulminaysaan oo loo gargaarayay habaarkoodana waa xoog kale oo bulshadu leedahay oo haddii way idin habaareen 24 saac ilaahay waxaan ka bariyay ummadda wixii raba inuu kala dhantaalo uu burburiyo inuu ilaahay isaga burburiyo wixii wanaag u wadana inuu ilaahay wanaag ku toosiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh